dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha tradingkan gaar ahaan media public iyo private ka socda ujeedada kani maaha trading ugu horeeyay aan qabno waa phase-kii labaad agaasimay ujeedadana qabano hor loogu qaad lahaa ilaalinta deegaanka iyo cimilada isbedelaysa sida dadkeena remote area meelaha fog ay degan sida mass media loo sii kobcin lahaa loo sii gaarsiin lahaa isbedelka cimilada ee dhacday si loo ilaalin lahaa deegaanka marka aad baan ugu faraxsanahay dadkan martiqaadkan quruxda badan qaybinay ee nagala soo qayb galeen manaha kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay trainingadu waa sii soconaya insha Allah xog iyo waxa inta ka sii faahfaahsanna waxaan sii doonaa kulay teamka igad xafiiska marka insha Allah tababarkuna xogtaas ku saabsaniyay in deegaankii kor loo qaado in la ilaaliyo in dadka aan xogta information gaar ahaan roobka kale dadka beeraleyda sidii loo gaarsiin lahaa ayaa loogu talagalay meediaduna sidii ay mashruucan arlog2 ay nagala shaqeyn lahayd marka ay u gaarsiin lahayd baahiyaadka ka jira ereyooyinka mashruucu ka fulo sidii loo gaarsiin lahaa ayuu daaran yahay xog kale information inta ku saabsan kulay tradingku 4 maalmood ay noo socdo insha Allah ayaynu ku soo ogaan doonaa Ilaahay raana bismillah ugu horeyn waxaan ka salaamayaa agaasimaha beeraha Professor Aadan Cabdullaahi ka soo qaybgalayaasha oo u badan meediyaha maxalliga ah oo iskugu jira kuwa private-ka ah iyo kuwa dawladda halkan waxaan ka salaamayaa shaqaalahayaga iyo teamka Nairobi ka yimid ee training-kan u socda ujeedada training-kana wuxuu daaran yahay sidii ka qaybgal iyo wacyigelin iyo ka qayb qaadashada mihnada saxaafadda oo suxufiyiintu u badan yihiin sidii ay ugu wacyigelin iyo ka qaybgal una gudbin lahaayeen community-ga marka waxaan jecelahay in tababarku wuxuu noo socon doonaa 4 cisho waxaan jecelahay in aad looga soo qayb galo tababarkana muhiimaddu waxa weeyaan in xogahan ku saabsan isbedelka cimilada iyo deegaanka iyo central observationska in aynu helayno aanu hayno maadaama shaqadayadu tahay u qaabilsan tahay wadamada geeska Afrika climate-ka iyo isticmaalka xogaha rasmiga ah sidii u gaari lahaa community-ga marka waxaan jecelahay training-kan wuxuu noo daafuraya inaynu fahanno wax badan oo ku saabsan observationska ama central observationska ama aqoonta iyo sidii research loo sameyn lahaa oo warbaahinta markaad wax gudbinayso aad ku saleyn lahayd evidence aad leedahay xogta taa waxaan jecelahay in badan waxaanu maqalnaa climate change waa wax jira oo run ah oo ina haysta oo arki karta imiga isbedelkii ku yimid xilliga wax beerinay marka waxaan jecelahay wariyaasha badi inay ka qayb galaan training-ka kan kana faa'iideystaan waxaan jecelahay ka filayna in reporto aad wanaagsan oo scientific ah oo community ay isticmaali karaan anagu kulay scientist baan garan kari mayno in sida community wax loogu gudbiyo marka training-ka waxaan jecelahay waxaana training ka bixin doonaa nin igad u qaabilsan qaybta communication-ka iyo saxaafadda oo khabiir ah inta badan wadamada tababara marka waxaan jecelahay intay training-ka socdo inaad ka faa'iideystaan oo hadhow toolan waxaan ka filaynaa in aad samayn doontaan reporto iyo warbixino iyo xogo waxaad u baahataan diyaar baan idin lahay aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha aadan iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha tababarkan agaasime tababarkani waa tababar wejigiisii labaad mar hore ayaan qabanay tababarkani wuxuu ku saabsan yahay in aan wariyayaasha ku tababarno ka warbixinta arrimaha la xiriira deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo wacyigelinta arrimaha ku saabsan mashruucan ka shaqeyno oo ka shaqeeya deegaano ka mid ah Soomaaliland wuxuu muhiimadda koowaad siinayaa gudbinta xogta cimilada ee la wadaagayo dadka marka tababarkii horeeyay waxaan wariyayaasha kula kaftamay
arrimaha siyaasadda aad baad uga warantaan marka Soomaaliland la yiraahdo macnaheedu haddii wariye la xasuusto wax la xasuusanayaa breaking news ama war degdeg ah oo ku saabsan xisbiye ka hadlay arrimo siyaasadda la xiriira laakiin waxaan u aragnay inay muhiim tahay haddii isbeddelkii cimiladu uu bulshadii saameeyey ay roobabkii isbedeleen bal wariyaashu door caynkee ka qaadan karaan ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada marka isbeddelka cimilada ka warbixinteedana waxa number 1 ka ah wacyigelinta iyo in dadku ay xogta helaan marka de beeraleydii 30 sano ka hor nooleed sidii ay wax u beeran jireen isbeddel badan baa ku yimiday xaruntayadan igad ee u qaabilsan xogta cimilada iyo soo saaristeeduna waxay qayb weyn u aragtaa macnaheedu sidii Cabdirashiid sheegay mar dhaweyd xogta cimilada gudbinteeda taasna waxaan isleenahay wariyaashu waxay ku leeyihiin miisaanka ugu weyn inay ka qayb qaataan marka waxaan jecelahay sidii waxaan xasuustaa shalay laba wariyo Hargeysa la soo daayo xidhnaa breaking news qof kasta arkayay bay ahayd marka anagu akhyaarta deegaanka iyo cimilada isbeddelkeeda ka shaqeysana waxaan jecelahay inaan aragno breaking news ku saabsan saadaal roob iyo wixii la xiriira ama deegaanka iyo wacyigelin ku saabsan marka haddii aad imika intii naasoo wariyay bayjajkiina ay malaayiinta qof ku xidhan yihiin arrimaha isbeddelka cimilada iyo wacyigelinteeda ku sheer garaysaan wax badan bay ka bedelaysaa marka muhiimadaasna waxay noqonaysaa mid dadku u arkaan inay muhiim tahay marka idinku sidaad u siisaan muhiimad arrinta la xiriira wacyigelinta deegaanka ayay dadka kalena u siinayaan marka waxaan jecelahay waxaan rajaynayaa tababarkan waa kii labaad ee aan isugu nimaadno markaagaas waxaan ku tababarnay markii hore inay bal wariyaashu bartaan erey bixinta marka wariyuhu dee u yaqaana shaqadiisa laakiin inaan ku tababarno erey bixinta isbeddelka cimilada wacyigelinteeda wixii la xiriira sidee loo sameyn karaa barnaamij ku saabsan isbeddelka cimilada wacyigelintiisa waxaas oo dhan baan ku tababarnay marka annagoo ku faraxsan inaan wariyaasha la shaqeyno waxaan idinka rajaynaynaa insha Allah inaad qaadataan doorkiina sidaan mar horena idin sheegnay iyo mar labaadna aan ku celinayno marka waxaan rajaynayaa insha Allah mustaqbalka dayna noqon haddii mashruucani marka cimrigiisu kooban yahay mashruucan waa 4 sano gabagabo ku jira muhiimaduna waxa weeyaan inaan ka tagno raad shaqeeya marka waxaan rajaynayaa inaanu tababarkan ku koobnaan iyo wixii la xiriira laakiin wariyuhu uu qaato doorkiisa ah intuu nool yahay uu sito microphone-ka inuu bal marmar u leexiyo marka ama 50% u leexiyo inuu ka warramo isbeddelka cimilada iyo deegaanka iyo saameynteeda marka anigoon hadal ku fogaanay waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad wariyaal hadaatiin doorkiina qaata marka aad bulshada ugu gudbinaysaan xogta haddii la yiraahdo intaasaan kusoo gabagabeynaya waad mahadsantihiin aad baan idinku mahadnaqaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تيمka ka yimid igad xarunta igad ee Nairobi iyo tiimka Somaliland hore u sii joogay bahda saxaafadda public iyo private ba aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta aniga farxad weyn bay ii tahay sida laga warramayna waxa weeye horta marka horeysa waxaan ka cudur daaranayaa tababarka oo shalay ahayd inaan idin imaado oo idin furay inay ii suura geli weyday mashquul aan ku jirna awgeed waxoogaa isbeddel xagga wasaaradda ka jira oo xil wareejin iyo waxaan ku mashquulsannahay way ii suura geli weydaan idin imaado taa waan ka cudur daaranaya tal kale runtii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan intan oo ah wariyayaal ama bahda saxaafadda ah oo runtii aan odhan karo waa maalintii ugu horreysay ee aan saxaafad intaa leeg aan hor imaado ama aan la kulmo aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo qofkii u furayay tababarka noocana runtii waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay sida laga warramay tababarkan iyo muhiimadda uu leeyahay gaar ahaan wasaaradda beeraha uu leeyahay si aad ogtihiin muddooyinkan dambe waxaa dhacay isbeddel baa dhacay dhinaca cimilada waxa weeye nolosheennu markaad eegto toos bay ugu xidhan tahay oo siyaabo badan baynu uga faa'iidaysaa siyaabo badan bay noo saameynaysaa 5 sano u dambeysay habeen dhaweyto oo meel aan isugu nimid waxaan ku bandhignay isbeddelka yimid siduu u saameeyey wax soo saarkii oo ah arrinta annagu aanu ku hawlanahay waana si weyn oo aad iyo aad dareemayso inuu hoos u socdo wax soo saarkii sidoo kale xoolaha iyo degaankana sidaasoo kale ay u saameynaysaa marka waa saameyn taban weey oo runtii muddooyinkan dambe ku timid degaankeennii ay nolosha ku xidhnayd marka ay sidaa tahay waxaa loo baahan yahay
dee in aynu ku talagalno inaguna qof kastoo Somaliland inuu ku talagalo siduu isugu adjust gareyn lahaa ama isugu toosin lahaa isbedelka dhacaya si uu noloshiisa u badbaadiyo dhinaca wasaaradda beeraha runtii waxa weeye anaga muhiimad gaar ah inoo leedahay in maanta intaasoo wariyaala awal dhowr kamida private-ka public-ka iyaan is arki jiray iyo qof maalintan xaflad leenahay noo yimaado oo private-ka ah laakiin maanta waxa weeye runtii waa labadii niba waa dhantii waana badantii runtii inkastoo laga yaabo in ka badan oo kalena inay naga maqan tahay laakiin intiina maanta nasiib u yeelatay runtii waxa weeyaan mas'uuliyad baa ina wada saaran mas'uuliyadina saaran waxa weeyaan qof walba roolka uu ku leeyahay inuu ka soo baxo si nolosheena wax uga bedelo shacbigeena iyo bulshadeennana waxa weeyaan inagayna sugaysaa saxaafaddu waa waxyaalaha ugu muhiimsan sida xeerarkeenuba dhigayaan ee bulshada muhiimka u awey haddii loo adeegsado dhinaca toosan loo adeegsado waxaanan rajaynayaa inaynu inta badan u adeegsano oo intaanan u ogahay wax dhinac taban u adeegsadaa uu yaryahay laakiin waxaan idinku gubaabinayaa mar walba inaynu aynu noqoto waxaynu wax constructive wax aanu noqon destructive wax duminaya aanu noqon wax dhisaya inuu noqdo cimilada markaan u soo noqdo waxa weeyaan qaybo badan bay ka kooban tahay badanaa roobka inaga yaa markaa maskaxda kusoo degdegayo oo marka la yidhaha cimilo laga hadlo roobkay maskaxda kusoo dhacaya temperature-ka ka mid a isaguna iyo heerkulku kolba siduu yahay xilliyada kala duwan baa ka mid a abaaraha iska daba yimid oo aynaan hore u arag oo beryahan dambe soo noqnoqday oo saameyn badan ku yeeshay nolosheenii oo beerihii iyo xoolihii iyo biyihiiba saameeyey dee intaa waa la tacaalayaa laakiin dhinaca wacyigelinta markaa aynu eegno idinka ayaa magaranaysa hawshaa rool weyn ku leh annagu wasaarad ahaan waxaanu beryahan wadnay wacyigelin ku saabsan inaan dadka ku dhiirigelino inay wax soo saarka kordhiyaan iyagoo isticmaalaya taba cusub oo ay kula tacaalayaan cimiladan iyo isbeddelka yimid ay kula tacaalayaan laakiin waxa weeyaan wax kooban baanu gaadhnaa idinkasta sidaa uu sheegay xuseen waxa weeyaan qof kastoo idinka mid ihi wuxuu leeyahay bar buu leeyahay malaayiin baa ku xidhan oo daawanaya dad badan buu gaari karayaa warkiinu marka inaad nagala shaqaysaan oo runtii aad xoogga saartaan aad bay noo farxad gelinaysaa oo aad hore u wadaan wacyigelinta dadkaas idinkoo barnaamij waxaan samaynay berdhawito waxaa daawud iyabaa soo daayo idaacadda laga sii daayaa cimilada iyo wax soo saarka ayaan beeraleyda ayaan isku xidhnay waxaa laga yaaba toddobaadkii hal mar buu soo baxaa waa waqti kooban inta dhegaysanaysaana inay koobantaa laga yaaba lakiin intiinaasi haddaad wada barnaamijka wacyigelinta aad waqti siisaan oo waqtiyadiina in yaroo ka mid aad siisaan wax badan bay yaad qaban karaysaan taana waxaan jecel lahay inaad sidaa u aragtaan oo aad u aragtaan inay muhiimad weyn ay u leedahay dadkeenna iyo dalkeenna markuu dalka iyo dadku inoo hagaagaan ayay nolosheenuna hagaagaysaa dee idinkuna bulshadaad ka mid tihiin oo nolosha hadday hagaagto waad la hagaagaysaa hadday xumaatana waad la xumaanaysaa badanaa waxa weeyaan wariyaashu waxay ka warramaan dhibaato dhacday oo dagaal dhacay iyo haddaad b b c oo kala dhegaysta mar walba waxa ay u badan tahay 80% anu horta saan u arkay balaayo dhacday halkana ma la weeraray bakteria duntay dhulgariir baa dhacay waxaasaa laga warramaya laakiin waxa weeye in dadka wax wanaagsan loo sheego waxay ka mid tahay muhiimadda saxaafaddu u leedahay bulshada runtii waxa weeye annaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta inaan helno dad nagala shaqaynayo oo tababar noocaasa qaata waxaa kaloo muhiim noo ah waxa weeyaan dadka inta badan ay aad u saamaysa ee vulnerable-ka u ah ama u nugul waxaan ku dhahdaa abaaraha iyo cimiladan isbedeshay u nuguli waa dadkeena miyiga jooga dadkaasina waxaa laga yaabaa haddaan maanta o dhan climate change aad hayso inaanay fahmin marka erey bixinta oo laga dhawaajiyay tababarka qayb ka mid ah aad baan ugu faraxsanahay idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad aad u boonboonisaan arrintaasoo aad dadka u fahamsiisaan si ay u aad raadisaanna ereyo ku habboon oo loogu gudbin karo message-ka aynu wadno ee ay ku fahmi karaan isbeddelka cimilada dadka aan scholarka ahayn inta badan boqolkiiba dee
miyiga jooga inta ugu badani waxaa laga yaabaa inaanay fahmin climate change iyo isbedelka cimilada iyo temperature iyo waxaan ka sheekeynayn inaad fahmin laakiin inaad idinku erey bixin inta u raadisaan kolley way leedahay erey bixin ka sida ugu habboon aad u gudbisaan tababarkana inay qayb ka tahay aad baan ugu faraxsanahay runtii waqti badan baan idinka qaaday waxa weeyaan aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu faraxsanahay inaad tababarkan oo kale aan noqdo qofkii furay idinkuna aad noqotaan ka qaybgalayaashii dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa khayr inaad 4 maalmood tababar ku socda aad ka faa'iidaysataan wixii aad ka faa'iidaana bulshada uga faa'iidaysaan idinkuna ka faa'iidaan tababarkuna officially waa inoo furan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.